السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحبي أكسر هذا مقالكنا maanta waxaynu ku qaadan doonaa sheeko aad u muhiimsan. Sheekadaas oo ciwaanka looga dhigay Beautiful History. Sheekada qurux badan, hero, AC, respect, fear, cabsida, and ES, respect, xushmada iyo cabsida farqiga u dhexeeya. Long time ago, waqti hore, very cruel king waxaa jiray boqor aad u meel adkaa. Cruel king, boqor aad u meel adkaa. Neema loo magacaabi jiray Farad loo magacaabi jiray. was ruling xukumi jiray the city of Nagar. Caasimada Nagar ayuu xukumi jiray. All citizens muwaadiniintu were fearful, aad ay ku baqi jireen. Were fearful, aad ay u baqi jireen because of maxaa yeelay sababtoo ah his cruelty, sharcigiisu aad u adkaa. miladeegiisu adkaa, manxaanku ahaa. Farad ninka la yiraahdo has a dog ayuu lahaa. Neema loo magacaabi jiray Jack loo magacaabi jiray. Which he used to love, wuxuu ka jeclaa more than anything, wax kasta ayuu ka jeclaa eegays ayuu wax kasta ka jeclaa. One faithful morning, subaxyada ugu mido oo asan u fiicnayn. Faithful waa subaxyada mucjisooyinka macnaha miracle-ka ahaa. One faithful morning, subaxyada ka mid oo ay u darnaad Jack eega lahay ayaa diet dhintay. eega ayaa dhintay Jack la oran jiray. Farad ninkii lahay organized wuxuu soo abaabulay ama soo u qabtay last rituals, dhaqankoodii ugu dambeeyay ayuu wuxuu u qabtay eegoodii oo dog eega ayuu u qabtay. dhaqankii ugu dambeeyay ayuu wuxuu u qabtay eegood. dhaqankaas waa in la isgubo from Hindi meelahaas way sheekado in la isgubo in qofka dambeskiisa meelahaas waxaas adigu waa dhaqankooda rituals. dhaqankooda last rituals ayuu u qabtay for dog eegiis ayuu u qabtay. Intaay sida caasimadii oo dhan camp waxaa ka yimaadeen formation ground si u soo qaybgalaan. caasimadii dhan dad ayaa ka yimaadeen si u soo qaybgalaan gubitaankiis si u soo qaybgalaan. Intaay sida camp creation ground, caasimada oo dhan gebi ahaanba caasimada oo dhan waxaa ka yimaadeen dad rabay inay cremation ka soo qaybgalaan grounds gubitaankiis. Cremation waa gubitaan around guud ahaanba inay ka soo qaybgalaan. Farad ninkii lahay was very happy, aad ayuu u farxay to see inuu arkay the people dadka love him inay isaga jecel yihiin so much si adag. And he left wuxuu taraamay he is the most popular king in the world, inuu yahay boqorkee, inuu yahay boqorka keliya adduunka u caasa. He left wuxuu taraamay he is the most popular king in the world, boqorka ugu caasan dunida inuu yahay ogaada. But laakiinse after few days, maalmo kadib, Jack died. Jack laftigiisa ayaa dhintay. No one ma jirto come for his funerals, ma jirto wax duugitaankiisa aan aaskiisa ka soo qaybgalay, ma jirto wax asaga u soo yimaaday. markii hore asaga u lahaa dhintay waxaa ka soo qaybgalay intaasoo kan oo dad. Farad astigii laftigiisa markuu dhintay, but markuu dhintay no one come, ma jirin qof imaaday for his funerals, tacsidiisa ama aaskiisa ma jirin hal qof oo imaaday. ma jirin hal qof oo imaaday ma jirin. haye moral of the story, macnaha sheekada pointka sheekada ku fadhiyo maxay tahay? Respect, xushmadu, is anything waa wax you have to either experience. Respect, xushmadu is anything waa wax you have to read experience, wax waajib ku tin expect way. You cannot for it, kuma khasbi karid others dadka to respect you in adigu ku ixtiraamaan, kuma khasbi karid. There is a thin line, waxaa jira line yar oo dhooban between u dhexeeya fear, cabsida, and respect iyo xushmada. waxaa jira line yar oo dhooban oo u dhexeeya cabsida iyo xushmada, respect. Everyone of us, qof kasta oo nagmida, should understand it, waa inuu fahmaa, and do necessary corrections, waa inuu laga maarmaan u saxaa in our personalities, shakhsiyadiisa, waa inuu qof shakhsiyadiisa u saxaa si uu u helo respect, laakiin kuma khasbi karid qofna.
muuqaalkina maanta halkaas ugu yahay saaxiib share iyo comment aad iyo maashtaasa